aad baa maasantahay abukaate arrinta canfarta dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaan arkaynay dagaal dhacayay galbeedka gobolka City bal waxaan jeclaan lahaa arrinta inaan wax ka weydiiyo xogogaalnimadaada hore iyo hadda waxa dhacaya soo dhow walaalow horta aan wax isleeyahay dhowr arrimood ayaa isdul saaran oo u baahan in kala leeyare la kala saaro horta colaadda cafarta iyo Soomaalidu qoomiyadaha aan isleeyahay adduunkan ku nool yihiin cafartu waa dadkan isugu dhownahay qoomiyadahan af ahaan baan isugu dhownahay dhaqan ahaan baan isugu dhownahay wada noolaansho baan isugu dhownahay oo taariikhdayadu mid ka loon ahayd weligeed ma ahayn dad aad isugu dhow iskaashan jiray oo dagaal xataa wada jir ah galay baan ahayn ganacsi baan wada lahayn waa dad ay isguursadaan exceptionally Soomaalidu waxa la yiraahdaa guurka waa dad exclusive ah oo bulshada kale ma guursadaan laakiin cafarta dadkii guursadaan bay ku jirtaa Soomaalidu oo aanay macnaha ka fogaan markaan leeyahay macnaha cunsuriyiin way ma ahay bulshada qaar baan dabiiciyan lahayn dabeecad ah inay bulshada kale ka guursadaan dhexdooda iska guursada oo qoomiyada gooni u dhibsadaan ma jirtay cadaan iyo madowba Soomaalidu inta ka badan waxay door bidaan madowba dadkooda inay guursadaan marka waana dad muslima marka la eego nolosha xageeda wadadan waxba inaga hooseeyaan oo dawladda Itoobiya waxay ku soo kordhisay ama dhaqaalaha ha noqoto ama cilmi ha noqoto ama wax kale waxba nolol dadkaasi dad haya ma aha dad cadaawad caam ku ah oo ama Soomaalidu haysi ama iyagu noo hayana ma aha marka intaas oo factor dhinaca hab nololeedka xataa marka la eego waa dad reer guuraaga dadka sida badan beeralayda iyo reer guuraaga iyo sayki ahaan tusaale dadka xoolo dhaqatada ah way isaga dhow yihiin dadka kale beeralaydu waa isku dhowdahay dhinaca xataa dhaqaalaha laftiisana dad isku dhow ayaanuna in marka dadka noocaas muddo dheer dagaalka iyagu socdo oo muddo dheer soo socdo waa wax markaan ku leeyahay muddo dheer 30 sano ma xilliga Hayle Salaase ilaa maanta dagaalkaasi wuu socdaayo markasta waxaan maqlayn ama qoraalka ku arkaysaa cafartii Soomaalidu in khilaafaad colaadeed uu dhexmaray dad mar hadduu meel wada degan yahay in la iskhilaafo waa wax dhaca oo cafarta kaliya maaha Soomaalidaaba dhexdeeda iswada dilaysa iyaga dhexdooda sidaas kale khilaafaad uga jira qoomiyadaha kale oo dhan baa markaad fiiriso aad u kala fog oo waxyaabo kala duwan inta isku qabtay istila tan Soomaalida cafartu maxay la damilaaday maxay hadda afar dawladood u maraysa muhiimaddu waxa weeye waxaa jirtay nin la oran jiray Xaaji Bashiir Daawud oo muslim ahaa mufti weyn oo Ethiopian ah ayaa wuxuu qoray book waxaan jeclahay inta badan inaan anigu taariikhda Soomaalida iyo waxa muslimka quseeyay iyo aan u toog lahaado eego marka Xaaji Bashiir wax badan buu ka hadlayaa dadka muslimiinta iyo mashaakilaadka haystay laakiin meel kamid uu taabanayaa khilaafkan wax kamid barbilowgiisii ugu horeeyay asagoo nin dhalinyaro ah oo dawladdu shaqo bilaabay berigaas marka dawladda marka loo shaqeynayo dawladdu waxay isticmaali jirtay waxa la yiraahdo assimilation policy assimilation waxa weeye hal dhaqanna waa la dhiirigelinayaa dhaqamada kalena waa la baabi'inayaa oo waynu ka hadli karnaa haddii loo baahdo arrimaha taariikhiga la xiriira marka assimilation policy waxa weeye dalku wuxuu leeyahay hal af iyo hal dhaqan iyo hal diin iyo hal taariikhahan kale oo kala duwan oo firarsanna waa meesha ka baxaan baa loo baahay marka sida badan dawlad oo kale markaad rabto inaad u shaqeyso magacaagu Xaaji Bashiir oo kale barkatiga Xaaji ma ahayna Bashiir iyo Maxamed iyo haduu yahay waa inaad bedesho marka magac kale aad ku bedelato ayuu ku bedelnaayo ku qorna Xaajigu marka xilligaas dawladda wasaaradda arrimaha gudaha waxay u kala dirtay shaqaalaheeda gobolada kala duwan dadkii marka wuxuu ahaa loo soo diray dhinaca galbeed bari yaa loo soo diray marka
waxyaabihii ay soo arkeen oo soo asas gareeyeen ayaa wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu soo noqday marka qiimeyn baa la wada sameeyay oo nin walba wuxuu arkay iyo waxyaabo concern ka qabay iyo waxyaabo kala duwan buu soo hadlay xaajigu marka dadkii waqtiga gacanta taagay buu kamid ah oo wuxuu yiri waxyaabahan arkay waxa kamid ah dad Soomaali iyo Afar marka muu soorana dad Ethiopian oo aagaas degan ayaa islaynay marka dawladdu maxay u dhaxgali lahayd dadkan uga kala hadlaado xal ugu keeni lahayd markuu hadalka weydiiyay ayuu wuxuu yiri war adiga tababarkii lagu siiyay si fiican ma fahmin miyaa oo wasiirkii wax saa ku waxba ma fahmin miyaa buu yiri adiga xagee laga keen maxaa dhacay wiilo wuxuu yiri dadkan miyaadan ogeyn inay dad muslimiin yihiin miyaadan ogeyn muslimiintu musawa ilaa iyo Mombasa oo xeebta naga xigta xeebteeda bari iyo waqooyiba waxa degan inay iyaga yihiin daanu heshiisiino oo isu keeno inay anaga khatar nagu yihiin miyaadan ogeyn marka waxaad dareemi karaysaa ilaaqdu ma oranayo dawlad baa isku dirtay dagaalada horaan ka hadlayo laakiin ilaaqdoodu inaanay dhammaan ama ay wax ka qabato dawladdu diyaar mid u ah ma ahay markasta annaga dadka iyaga observe gareeya xaajadan aadka u indheeya waxaanu aaminsanayn mar walba inay dawladdu aaminsanayd dawladdu ay aaminsanaayeen in dadkaasi aanay nabadna noqon colaadna noqon ana nabadna inaysan dhex marin xaalad maxaa la yiraahdaa faraha ka baxda baan u jeedaa aanay noqon meel dhexe oo maalin walba la leeyahay dagaal baa bilowday markaas haddana xogaal sababta dagaalka inay isku xasuuqaan waxay keenaysaa dhulka arterigiisa wax u maraan oo dhan yaa meesha ku taala marka wadooyinkii muhiimka hana heshiinina dagaalkuna ha iska socdo laakiin dagaal faraha ka baxa yaanu dhicin qorshe ah oo intaa uun xabadda nagta la isku hayo oo maalin walba la leeyahay hadda nabad la filaya haddana nabadii ay dib u burburto oo dhaco inay jirtay waan aaminsana dawladdan maanta jirtaa arrinta ma si diimeed bay u eegaysaa fikir iyo tan ka horeysay mid tii ka soo horeysay ma si diimeed bay u aragtaa ma qabo oo diin xageed kama arko laakiin waxaan aaminsanahay dalkan wuxuu leeyahay paranoia Soomaalida ku saabsan ama maxaan ku iraahdaa buufis Soomaalida ku saabsan oo lafta kaga jira su'aalan ku sheegaya deegaankeena shidaal ba gas ba ku jira waxa dhacday mar projectiyada la diyaariyay oo sida gaaska looga faa'iideysanayo ku saabsan iyo sida loo soo saarayo ayaa waxa la diyaariyay mashaariic kala duwan gaasku tuubada kaliya oo socoto ma mashruucyo kala duwan baa la socda oo dhinaca isla gaaska laftiisa la xiriira waxaan eegay qorshaha la diyaariyay sida uu noqonayo mashruuca ugu sokeeya oo gaaska la xiriira oo la fulinayo awaash baa ugu sokaysa dhinaca kalena Djibouti baa ugu sokaysa inaga tuubada kaliya dhex maraysa marka waxaan isweydiiyay waxa jirtay hadda xiriyaha ciidanka maxaa la yiraahdaa xiriyaha gaaska laga qodo biyaha oo la siiyo ciidanka ha noqoto raashin la siiyana hataa ha noqoto shaqaale iska caadi ha noqoto hal qof laga shaqaale oo Soomaaliya laga shaqaale hadda isbedel baa jira sidii hore maaha dawladdan dadaal ay samaysay baa jirto wuxuu mu oran karo way soo bedeshay hadda sidii hore waxba ka yar bedelay ciidanka dalka u joogo deegaanku inuu ilaaliyo ama qof Soomaaliya ku dhex jira looma ogolayn dhamaantiis waxaan markii isweydiinaysaa wax shaqo ka soo baxay oo adiga qiimo ahaan xataa markaad fiiriso shid meesha ay waxyaabahan projectiyada barta shidaal ka soo baxa lafteedaba in laga fuliyaa fudud oo waxaan oo qaxdi aadan marin dhamaanteed markaad fiiriso waxaad ka ogaanaysaa security paranoia oo dalkani qabo inuu jiro marka iminka paranoia aan tuhusanahay waxa weeye dalkan meelaha wuxuu soo maraan dhammaantood Soomaaliya baa degan laga soo bilaabo Mooyaale ilaa jidka hadda la isku dilayo oo
cafarta dhulkeeda la isku hayo jidkaasi by the way waa jidka casab iyo jidka Djibouti halka ay iska soo maraan ugu yaraan 300 oo kiiloomitir oo ka mid ah Soomaalidu deganto degmooyin dhan baa ku yaalo muddo dheer la deganaa dhammaan wixii artery ah oo dhan bay degan ninna iguma sheegayo iguma sheekayn karo dawladdu arrinta inay concern ka qabin markaan eego taariikhiyan paranoid ama buufiska Soomaalida laga qabo jidadka kuwa kamida dawladdu inaanay doonayn in la baneeyo ani shaki anigu tuhunkaas waan qaba marka dhinacan mooyaane khilaafaadka hadda ka socdo oo khilaaf kuma oran karo laakiin Soomaalida si taasi baa noqotay in yara la durkiyo oo aaga laga fogeeyo fikir ah uu jira dhinacan kale sidoo kale arrinta in iyaga laftoodu raad ku yeelan karaan waan qaba waxyaabaha tuhunkayga xoojinaya baan ku sheegaya waxaa dhacday markii khilaafaadku dhacay khilaafaadka iyo sidii uu u bilowday waan ka hadli doonaa dawlad deegaanka Soomaalidu waxaa lagu cadaadiyay meesha inay ka baxdo tusaale dadkii markii la laayay meesha ay aadeen waxay yiraahdeen dadkan amnigooda yaa sugaya marka ciidamada Itoobiya qaybo kamid ah joogay dadka markii la laayay dawladda ciidamada Itoobiya looga tagay iyaga ilaalinaya dadka amnigooda tusaale candufto kala aan filaya hadaan khaldanayn waa looga tagay iyaga la yiri inaga mas'uuliyadda garanti gareynayna waa looga tagay dadkii shacabka ahaa oo meesha ka soo baxay oo arkay markii la leeynayo daawanaya mar allaala markii dadkii meesha laga soo saaray oo la soo ceeriyo aagii laga soo ceeriyeen ku soo noqoshadeeda iyo in Soomaalidu ay dagaal qaado iyo inay wax iska caabido sharuudo kala duwan iyo culaysyo kala duwan oo aad u dheer oo odayaasha iyo mas'uuliyiinta la saaray baa meesha soo galay ani tuhunkan qabaaba markuu wuxuu yahay cilada ugu badani Soomaalidu artery-gana ay joogto ka durkinteeda rabitaan horta in meesha ku jiro markaan cafarta iyo Soomaalida u soo noqdo marka iyaga markaan loo kaliyo soo noqdo waxa ka jira meesha heshiis 2014 dhacay oo laga saxiixay baa jira heshiiska in la saxiixo waxyaabaha saldhigga oo ahaa waxay ahayd dawladdii TPLF hoggaanka ka ahayd oo markaa meesha joogtay culaysyo kala duwan oo saarnaa oo siyaasadeed waxay u arkeen inaanay muhiim ahayn Soomaalida iyo cafarta hawsheeda iyo kala fogeynteeda in la sii wado marka si uu heshiis jooba in loo saxiixaa la sameeyay heshiiskaas Soomaalida iyo cafartuba intaan ogahay kuma qanacsanayn laakiin contentigiisa rabaa inaan ka warramo contentigiisu wuxuu ahaa maamulka deegaankaas in cafarta lagu wareejiyo laakiin maxaa la yiraahdaa amniga dadkaas iyo horumarka dadka cafartu inay ka shaqeyso waa iyada mas'uuliyadda ay fuulayso administration ahaan laakiin ay deegaanka hoos tagaan go'aanka noocaas cafartuna kuma qancin waayo iyagu waxay rabeen dhulka Soomaalida in laga raro Soomaaliduna kuma qancin oo de macna ma sameeyeen dadkan oo dadkii kale walaalahooda ah dariska degan yihiin in la yiraahdo ma ee dad kale yaad hoos tagaysaa marka shaki noocaas mar walba maxaa la muran noocaas oo labada dhinacba yaali uu jiro si kastaba ha noqoto dad badan ay hadda maanta waxay yiraahdaan oo Itoobiya oo dhan laga sheegaa in Soomaalida heshiiskii noocaas ah iyadoo ay si official uga baxday laakiin xaqiiqdu sidaa ma Soomaalidu de sidaan ku sheegay dhinac walba mas'uuliyad saareed baa jira مسؤولية ساريد عفرت وحقوق waxay ahayd amniga shacabka in la sugo la ilaaliyo isla markaana horumar dadka la siiyo maadaama maamulahaan iyaga ay hoos tageen by the way maamulahaan bay hoos tageen marka la yiraahdo cafari baa maamulaya ma dadku iyaga ismaamulayo local degmo iska liaison oo kala u dhiganta liu waxa la yiraahdaa special arrangement oo shacabku de xataa maxaa la yiraahdaa iska dhaaf cafariga Soomaaliya isla Soomaalida dhexdeeda de waradho walba dadka deegaanka degan inuu maamulo baa nidaam ku qoraya marka dadku iyaga un baa ismaamulaya laakiin de meesha ay ku xiran yihiin baa ahayd cafarta
marka cafarta waxa laga filayay waxay ahayd amnina inay siiso dadka horumarkiina ay fuliso Soomaaliduna inay sheegashada dadkii halleeyskeen ay ka saarto meesha ayuu waxa meesha yaal ma sax baa ma khalad baa meesha hayaan laakiin hawliba waxay ku qaribantay cafartu horumarkii la sheegayna dadka uma keenin markii dambana dadka laftiisa bilowday inay layso Soomaalidu marka waxa kaligeedu ay hayeen haday qaylisay Soomaalidu oo dadka maxaa loo dilayaa tirina wax dhig jala u siiyay ma jirin waxa kaligeedu marka mas'uuliyiintii marka jigjiga joogtay u furnaada waxay ahayd inay ilaalin heshiiska oo dhan laftiisaba aan ka baxno waayo markay dabcaan inay dadkii u gurmadaan waxa la oranayay maxaa deegaanka cafarta u gasheen oo legitimacy hore loo baxshay ayaa meesha taalay marka cuyuban waxay galeen dadkii oo dalaynayna aanay dooran karin heshiisku sheegan cafartii ay burburisayna aan wax laga soo qaadi karin oo la ilaashay maxaa la yiraahdaa la ilaalin karin markii lagu dhawaaqay oo yiraahdeen annagu waan ka baxnay oo qayla gar dhaweysay meesha ay dabcaan inay ka dhigaan eed baa dusha loo saaro waxa la yiri idinka ayaa heshiiska ka baxay idinkaaba dhibaatadan sabab ah xaqiiqadan waxa weeyaan ka bixitaanka heshiiska wax badan oo dil iyo dagaal ah oo shacabka lagu sameeyay ayaa ka horreeyay haatan iyo dan waxa ii muuqata isdilka cafarta dadka Soomaalida sidaan hore u sheegay wax dan oo ugu jirta inaanay jirin dagaalka wuxuu u baahan yahay si nabada in lagu dhameeyo intii hore sidaan ku sheegay waxyaabo badan oo technical errors oo barbilowgii khibrad la'aantu keentay maxaan oran karaa qarindaar badan oo Soomaalida ka dhacay oo tusaale qoraalkii ay kaga baxayeen oo kale sidoo u qornaa dad badan oo markii aan si organize ah uga fiirsan waayo xaajadu dhan baa si waxay ku dhacday habqana si lama filaan ay u dhacday si habqana oo ku soo waa lagu gala marka qalindaar badan baa yaa waqti ku dhacay Soomaalida marka culayskaas tirada badan oo fuulay ka sakow Soomaalida khasab markii rabshadii dhacday oo dagaal cadaaday in la islaayo Soomaalida runtii ciidan iyo shacab waxyeello badan baa gaartay sababta ugu weyn waxay ahayd Soomaalidu inay is abaabusho oo dagaalkan si weyn u gasho waxay threat gareynayso khatar ku ah arrintan ku sheegayo dagaal weyn meesha inuu ka dhaca danta guud oo dawladda dhexe ay leedahay uu ka hor imaanaya haddii aad damacdo inaad halkalyaalo ku daydana cafartu waxaad moodaysay inay ahaayeen dad lagu abaabulay Soomaalida inay dhulkoo dhan ka kiciyaan oo maanta waxyaaba cafartu ka hadlaysaa saddexdii degmo oo muran ka dhashay ma erar bay ka hadlayaan iyo dirnaba duleedkeeda marka khasabna waa ku ahay Soomaalida in la celiyo marka hab maaragtay calooliyo waan oran karo oo dhinacna aanay doonayn dawladda federaalka iyo iyagu inay isqarjacaan waayo qarjacooda khasaare siyaasadeed ayaa kaga imaanaya waxa meesha yaalana ay ahayd inay ka jawaabaan oo laakiin jawaabtoodu aanay noqon mid extreme waafi ah oo awoodda u qaranta meesha in la geeyana aan u suura gelinayn ay ahayd by the way nimanka culayska lagu hayay markaan runta kuu sheego mid sahlan maahay qof lug ku yeeshay dadkaas doodiis ama isku dayay maalin dadka inuu ibaalu yaro wax iska dhicin oo waris caabiya oo bal maatada hal badbaadiyo oo aan si toos ah loola hadlan oo aan la cabsi gelin ma jiro macna culaysku intuu la ekaa waa si kastaba ha noqoto waxaan is leeyahay cafarta bilowgii hore arrimahaas irarka hoon ku sheegay waxyaabo badan Soomaalida har ragaadeen laakiin intii dambe oo dhan Soomaalida nabad raadis baa oo waxay lahayn war aynu shiino sida wax u dhan oo aynu Soomaalida nabad raadinaysa cafarta ay raadinay oo lahayn war aynu wada hadal aniga laftaydu mas'uuliyiin badan iyo dad badan baan aqaanaa cafarta waan la hadal waxaan isku dayay inaan iraahdo war bal xaajadan hala dajiyo nabad aan ku soo dabaalo markaad la hadasho eed un ciida ka badan iyo dhul ciida ka soo badan oo sidaan kuu sheegay dir dhaba duleedkaada oo laga qaaday iyo dulmi Soomaalidu u geystay oo dhamaanteed aad arkaysid in lagu jireynayo in dagaalku sii socdo inay raadinayaan waxaan marka isleeyahay Soomaalidu
way ku khasbantahay inay isdifaacdo fursad kalena ma furna laakiin sidoo kale si aggressive xoog leh inay nabadda baadi goobkii ay ugu jirtay ay u gasho dagaalkaasi inuu sii socdo sidaan aaminsanahay sideeda laba qolo haddii ay isdisho ama is-afgaran weydo oo iyagu xal dhexdooda ka keeni waayaan sida caadiga ah waa la dhexgalaa oo dhexgal yaa lagu sameeyaa xaajada lagu xaliyaa labada maamul iyo labada dad oo isdilaya iyo labada shacab oo ismaagani laba dowladood oo kala madax bannaan ma isku hal dowlad bay hoos tagaan cidda la rabay arrintan inay facilitate garayso oo tallaabo wax ku oola qaado oo dadkan isu soo jiido oo aan isleeyahay tabartana way leedahay tallaabadiina aan qaadin waxay ahayd dowladda dhexe waxaan markaa anugu qabaa sidii nabadda in loo raadiyo laakiin culayska cafarta keliya la saaraya mooye dowladdan Itoobiya heshiiskii dambe oo dhacaya dhowr shuruud baan islahaan buuxsho kow horta nabadgelyada amniga dadkan mar dambe lama gelin karo wax negotiation mar bay Soomaalidu wareejisay arrinta khasaare badan oo qodha mar labaad in la yiraahdo baylaha noocaasi inay dhacdo waa in laga taxadaro waxaan isleeyahay heshiiskii dambe oo la gelaya waa inuu saddex goosood noqdo waa inuusan cafar iyo Soomaali noqone dowladda federaalka waa inay qayb ka noqoto oo mar garantor ka noqoto marka labaadna danaha ay leedahay waxba inaanay dabdaboolin inay ka hadasho Soomaalidu waxay tiraahdaa duduma in la dugsado iyo in la dareensado la isku madayo dowladda Itoobiya qayb baanu kana waanu ka tirsanna foreseeable future kan qaybtaas aanu ka ahaanayna iyaguna waana rabaan oo waana doonayaan annana inaanu cabsi qabnayna inay cabsi qabaan oo qofaad leedahay waan ku xukumayo dhulkaygaad ka tirsan tahay oo anigaad citizen ii tahay haddana aad ka tirsan tahay oo aad isleedahay meelaha muhiimka ka riix yuusan berri ka maalin kugu qabsan sax ma noqonayso dadka Soomaalida marka waxaan isleeyahay waxa khasaba dowladda federaalka iyo Soomaaliya si frank ah u wada hadlaan oo yiraahdaan maxaa meesha ku jira dantiina idinka maxay dhibtan waan ognahay inaad xallin kartaan arrinta saddexaad oo isleeyahay xalka way soo dhaweynaysaa waxa weeye dowladdu anigu waxaan qabaa inay arrintan u hagar baxday way u hagar baxtaa war meesha rabtaa ha dhigto hanti badan baa kaga baxday geeri badan baa ku soo martay agajuuleen siyaasadeed oo badan baa ku soo badan risk badan bay u galeen laakiin doorka Soomaalida kale caadiga ah oo elite-ka deegaanka ama siyaasiyiin ha noqdeen ama raggan hadda ku sheegayo ha noqdeen iyo baraarujinta marxaladda dadkani waxay tahay aad iyo aad bay hooseysaa waxaan isleeyahay in la helo deal wanaagsan kullayba marka ugu dambayso go'aanka ugu dambeeya cidda saxiixeeda iyo taladeed ka imaan doonta waa dowladda dhexe dowladda dhexe iyo haddii jigjiga mas'uuliyiinta joogta la isku baneeyana waa la buuran doonaa waxaan isleeyahay marka shacabka kale iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiintu culays area inay abuuraan si nabadaas u dhalato yaan qaba waqtigan xaadirka afar baasaan yeeshay mid clear ah jirta waa la isku dayay labadan qabiil oo isdilaya iyaga dhexdooda is afgarad nabadeed oo ay dhalin karaan ma jirto cidda nabadan keeni karta oo khasbi karta labada qolaba waa dowladda federaalkana culayskii loo baahnaa ilaa hadda cid saartay ma jirto marka waxaan isleeyahay arrintaa dadkeenu ha ku baraarugo waqtiga dayacda dib ka qoomamaysa dadaal imika fursad door ah haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka darulfalaax.com baryaal daacada dar ilaahay wax ku bara darulfalaax ugu kaalay mudaneenaysa barashada quraanka kariimka ee habka online-ka darulfalaax.com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxaraha u bixinayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka quraanka kariimka dugsiga waxa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiyo quraanka kariimka taasi oo ka qafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo quraan saara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda shacab yahow boqorani waa bishaaro maante guryihii batee marka ay baratameen waxaa buugga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhisayso shirkadda Farjano Apartment Limited
haddaba bal eeg dhismaha ugu bilicda roon haddii badigoob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxaa inoo ballan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guryo aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyay dunida. Shirkadda waxa ay ka dhisaysaa guryo kala duwan xaafadaha kala ah Islii, Juja'e, Pangani, California iyo Parklands. waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Guryaha ay shirkaddu dhisayso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi. Guri walba waxa u diyaarsan parkingkii gawaarida. waxaad ka heli doontaa adeegyada asaasiga sida wiishashka. Guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha. Ha ka reebin kaamirada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac. sidoo kale waxa intaas u sii dheer motorka korontada, nadaafadii goobihii jirdhiska iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid ah guryaha ay shirkaddu dhisayso. wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo